سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرديدا الصوماليات أدبن سلام يا سيدي أيدو هورن لوغا براتين وحان مانتا إدن كسو قدبينينا هالكان scholarship عالمي أو قف أردي والقو صومالي حريسان كرو scholarship كان أيين وحير كتا تابان دونا scholarship كان وحاوي هاي إدا maalgelinaysa ee marti qaadaysa iyo waqtiga uu dhacayo howlahaas iyo waxyaabaha laga doonayo sidoo ardaygu u xareysan karo howlahaas aynu insha Allah wax yar ka taaban doonaa hadduu alla idmo scholarship-kan waxaa la yiraahdaa the government of Brunei Darussalam scholarship for foreign students 2020 ilaa 2021 scholarship-kani waa scholarship ay ku dhawaaqday sidoo kale ay maalgelinayso dalka la yiraahdo Brunei dalkaasi waa dal Aasiya ku yaala oo la jaar ah dalalka Indonesia iyo Malaysia dalkaasi waxa uu sanad walba bixiyaa scholarship-kan sanadan haddaba scholarship-kan ayuu ku dhawaaqay oo isla bishan furantay haddaba arday waxaan ku leeyahay ka faa'iideysi wacan Introduction of the scholarship haddaba intaynan introduction ka bilaabin waxaynu ka soo sameynay summary yar oo kooban kaas oo aynu ka keenay summary-gan website-ka ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Brunei ay ku leedahay barta internet-ka kaasoo ay ku ilaamisay scholarship-kan ayaynu in yar ka soo khulaasaynay aynu ka soo summary ka soo sameynay si ay ardaydu inoola fahanto scholarship-kani waxa uu yahay habka loo xareysanayo waxyaabaha laga doonayo ardayga iyo waxyaabahaas haddaba introduction baynu ku bilaabaynaa inaan wax yar ka yar taataabano scholarship-kan wuxuu ku yiri wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Brunei waxay marti qaadaysaa ardayda u baahan inay xareysato scholarship-ka ay soo bandhigtay dalka Brunei oo furmay sanadan 2020 ilaa 2021ka ay ku yiri scholarship-kani haddaba wuxuu iskugu dhex jiraa diploma undergraduate oo bachelor iyo postgraduate oo master programs haddaba afartan jaamacadood ayaa ka qayb qaadanaya scholarship-ka oo mid walba sidiisa gaarka u soo bandhigaya faculty-yo kala duwan sidoo kale requirements amba mid walba kugu xirayo shahaadooyin gaar ah amba waxyaabo gaar ah kugu xiraya marka jaamacad walba sideeda u xareysanaysid taasna hadhow baynu ka taaban doonaa the academic year commences haddaba waqtiga waxbarashadu waxa ay sideeda u bilaabmaysaa oo ardaydu looga baahay inay isu soo xaadiraan waqtiga July iyo August ay toos u bilaabmaysaa waxbarashada waqti sanadka ardayda ku guuleysta the closing date of this scholarship is waqtiga uu dhacayo amba deadline-ka scholarship-kan uu dhacaya waa 14 February 2020 marka waa isla sanadan ayuu dhacayaa bishiisa labaad 14kiisa eligibility waxa weeyaan ardayge ayaa xareysan kara si ardayge ayaan xareysan karin haddaba qodobka koobaad applications are open to citizens of but not limited to ASEAN Commonwealth and OIC member countries wuxuu ku leeyahay saddexdan goobood tusaale ahaan oo kale qaaradda Aasiya ururka Commonwealth-ka ay ku jiraan dalalka Ingiriiska iyo dalalkaas Canada iyo kuwaas sidoo kale OIC dalalka ay ku bahoobeen ururka ay ku bahoobeen dalalka Islaamku ayaa ka mid ah dadka loogu talagalay inay xareystaan scholarship-kan haddaba Soomaalidu badanka Soomaaliya waxay ku jirtaa ururkan la yiraahdo OIC ay ku midoobeen
dalalka islaamka. marka qofka Soomaaliya jooga amba Somaliland jooga amba meelaha kale sida Djibouti uu xariisan karaa. Applicants qodobka labaad, applicants must be waa inuu ahaado qofka xariisanaya waa inuu between u dhaxeeya ages da'diisa 18 ilaa 25 qofka weeyaan bachelor degree amba undergraduate ka xariisanaya wuxuu ku yiri waa 18 ilaa 25 inta u dhaxeeya uu yahay bachelor degree iyo diplomada weeyaan. qofka postgraduate amba master program xariisanaya waa in aanu ka weynaan amba aanu dhaafin 35 jir. qofka master program ka xariisanaya waxa uu ku leeyahay waa in aanu 35 jir dhaafin amba uu ka yaryahay amba 35 yahay. The award is not eligible to Brunei Darussalam permanent residents. wuxuu ku yiri this award abaalmarintan scholarship kan abaalmarinta ah ee dadka loo soo bandhigay ma xariisan karaan oo looma ogola dadka deganaanshiyaha u haysta dalka Brunei amba degan ma xariisan karaan bukuuri. qaybtan programs overhead and entry qualifications afarta jaamacadood ee ka qayb qaadanaya scholarship kani mid walba programyo ay bixisaa iyada u gaar ah. sidoo kale shuruudo iyada u gaar ah oo dhanka certificateska amba shahaadooyinka ay kugu xidhayso si aad u xariisatid faculty-yadeeda qaar ka mid ah ayaa jira. marka mid baynu dul istaagi doonaa. jaamacadda koobaad waa University Brunei Darussalam. linkigan ayaynu soo koobiyeynaynaa kadibna Google-ha ayaynu ku paste-gareysanaynaa kadibna wuxuu noo soo saarayaa download gareysanaynaa. markaynu download gareysano waxa inoo soo saarayaa PDF kan. PDF kan waxa weeye wuxuu ku koobaya uu kaaga sheekeynaya jaamacaddani maxay bixisaa programyada noocay bixiso sidoo kale waxyaabaha ay kugu xidhayso si aad u xariisatid programyada qaar ka mid ah. jaamacaddan haddaba waa University Brunei Darussalam waa teeni koobaad. waxay bixinaysaa undergraduate programs amba bachelor degree programs oo kuwana ka doontid ayaad ka dooranaysaa. waxaad eegaysaa haddaba general requirements waxa muhiim ah waxyaabaha ay kaaga baahan tahay inaad ogaatid jaamacaddan si aad u xariisatid faculty-yadan. general requirements waxyaabaha ay ka doonayso wuxuu ku yiri at least grade C6 in English language at GCE or level examination. wuxuu ku yiri waa inaad imtixaanka Englishta aad ka keentaa C6 imtixaanka GCE-ga amba oo u dhigma levelka. waa imtixaan international oo loo galo Englishta laakiin dalalkeena aan laga gelin. sidoo kale wuxuu ku yiri amba waa inaad grade B ka keentaa in IGCE in English as second level. wuxuu ku yiri imtixaanka dawligaaga ee dawladdaadu ay ka qaadso waqtiga secondary level-kaaga sida imtixaanka tusaalahaan oo kale marka form-ka u fadhiisanaysid imtixaan IGCSE-gaas laga qaadaya waa inaad maadada Englishta aad ka keentid buu ku yiri B waad xariisan kartaa haddii aad B ka keentay. sidoo kale haddaad IELTS score haysatid shahaadada internationalka IELTS 6.0 haddaad haysatid amba TOEFL amba haddaad haysatid 550 gaadhaysa amba sidoo kale aad ka gudubtid English course-ka ay jaamacaddu ay soo bandhigayso ay dhigto amba sidoo kale amba imtixaan aad u gashid tijaabada Englishtaada ay jaamacaddu ka qaadayso. marka muhiimaddu waa intaas laakiin majority-ga inagu waxaynu awoodda saaraynaa waa imtixaankan waayo dalalkeena waxaa lagu qaaday imtixaankan IGCSE-ga ee imtixaankan dawliga. wuxuu badeegaysaa maadadaada Englishta haddaad B ka keenta waad xariisan kartaa. kaasina waa ka bachelor degree-ga markaad xariisanaysid. graduate programs amba master programs baynu soo gudbaynaa. haddaba master programska laba ayuu kala saaray waa master by coursework iyo master by research. master by coursework waxa weeyaan waa koorsada oo kaliya ayaad dhiganaysaa laakiin research waxa ma sameynaysid. halka B-da amba aad ka dooran kartid inaad u diyaariso mastertaada by research inaad research kaliya aad samaysid.
mastertaada. marka labada qodob bood samayn kartaa inaad koorasyadoo kaliya aad soo dhigatid iyo inaad soo dhigatid inaad research ahaan aad ku qaadatid mastertaada optionkaadiga iskale. waxyaabaha haddaba lagu xidhay mastertaada waxaa ka mid ah general entry requirementska. The minimum requirement for bachelor degree program is normally relevant bachelor degree with honors. wuxuu ku yiri waxa ay la mid tahay master programska markaad xareysanaysid sidii bachelor degree-ga hore aad xareysanaysid waxyaabaha lagu xidhay amba or it's equivalent from an institution recognized by the university and Senate unless otherwise stated. wayn sidoo kale shahaadadaada amba jaamacadda la aqoonsan yahay oo noqoto shahaadadaada mid la aqoonsan yahay. taasina waa taas. The period 12 months or 18 months full time depend on the program. wuxuu ku yiri mastertaada koorasyada diyaarinaysa waa 12 amba 18. master by research kana waxa weeyaan waa 24 months waa 24 bilood. marka jaamacadana waxaad ku xareysan kartaa by online ahaan sidoo kale application form aad buuxin kartaa. waxaynu gudbaynaa jaamacadan labaad ee University Islam Sultan Sharif Ali. linkigeedana aynu soo koobiyeysanaa kadibna waxaynu ku koobiyeysaneynaa halkan si aynu u soo download-gareysano. anigu haatan soo download-gareystay waatan Sultan Sharif Ali University of Islam Sultan Sharif Ali. waxyaaba masterta lagaga baahan yahay buu ku yiri entry requirementska. the minimum requirement for master degree program is normally relevant bachelor degree with honors. wuxuu ku qofka masterta xareysanaya wuxuu la mid yahay bachelor degree xareysanaya laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa inuu GPA haystaa at least ahaada GPA haysta 2.66 amba wixii ka sareeya. sidoo kale shahaadadu sitaa mid la aqoonsan yahay jaamacadda laga aqoonsan yahay. bachelor degree with honors provided the applicant has 3 years of relevant. marka waxaynu eegaynaa sidoo kale jaamacaddan waxay bixinaysaa English way ku bixinaysaa, Arabic way ku bixinaysaa, sidoo kale waxay ku bixinaysaa Malay. waxaynu imanaa jaamacadda saddexaad oo University Technology Brunei la yiraahdo. linkigiisa ayaan sidii hore usoo koobiyeyna kadibna waxaynu ku koobi gareysanayna halkan. waxaynu eegaynaa waxyaabaha lagaga doonayo undergraduate-ka minimum waata jaamacadda University Technology Brunei. undergraduate applicants for admission undergraduate tani way ka yara duwan tahay labadii jaamacadood ee hore. wuxuu ku yiri qofka bachelor degree-ga xareysanaya waa inuu C6 ka keenaa mathematics-ka imtixaanka mathematics-ka ee GCE amba waxa la mid ah ka keenaa at least C6 in English language. sidoo kale waa English language kan buu ka keenaa intaas. taasina waa taas. muhiimaddu waxa weeye inaad ogaataa waxyaabaha ay kala duwanayso jaamacaddu. faculty-ga aad doonaysid waad ka heli kartaa laakiinse muhiimaddu waxyaabaha ay kugu xidhaysay sida xareysatay faculty-da ayaa ka muhiimsan marka hore inaad ogaatid. kadib aad u gudbi kartaa inaad deedeetid faculty-gaaga oo aad ka deedeetid jaamacad bixiso iyo in kale. ta ugu dambeysa la yidhaha Polytechnic Brunei. linkiga ay soo koobiyeysanaysaa sidii kuwii hore. waxaan ku basgaraysanaa Google-ha kadibna wuxuu noo soo saarayaa download buu noo saarayaa waynu download garaysanaa kadibna information-keedu dhammaystiran oo ta jaamacaddii anu haatan soo download garaystay. waxyaabaha kugu xidhay waxaa ka mid ah GCE-ga grade-skada imtixaankaas kanayno inaga naqshay IGCSE waa imtixaanka dawligeena dawladdeenu ay qaado imtixaanka dawliga la yiraahdo ee secondary-geena
waa in qofku A plus amba A minus keena. sidoo kale A normal 75 ilaa 79 wuu xareysan karaa, 70 ilaa 74 wuu xareysan karaa, 65 ilaa 69 wuu xareysan karaa, 60 ilaa 64. hadduu markaa waa qofka 60 wixii ka sareeya wuu xareysan karaa dibloomooyinkan ayaa macnaheedu tahay. sidoo kale kana wada eedeyn kartaa dibloomooyin badan ay bixinaysaa. School of Businesska, School of Information and Communication Technology, dibloomooyin badan ayay bixinaysaa oo wada eedeyn kartaa. laakiin waxaa ka muhiimsan inaad marka hore ogaatid waxyaabaha jaamacaddu kugu xirayso si aad kadib aad u gudbi kartaa inaad deedeeyato facultyga aad doonayso. Application procedure waxaynu gudbaynaa habka loo xariisanaya daba applicationka. qodobka koowaad buu ku yiri waa inaad application forms can be downloaded from the following link. waa inaad halkan linkigan kasoo download garaysataa application formka. labaad, application forms must be duly completed and endorsed by the Ministry of Foreign Affairs or the national local point for scholarships of the applicant's country. wuxuu ku yiri waa in aad application formka markaad soo dhamaystirtid sidoo kale aad la soo martaa wasaaradda waxbarashada amba national local point-ka tusaale ahaan for the scholarships amba qaybta khusaysa scholarshipska dowladda of the applicant's country. qofka xareysanaya dalkiisa, qofka xareysanaya waa inuu la soo maraa waraaqada wasaaradda waxbarashada amba qaybta scholarshipski waxa la xidhiidha wasaaradda waxbarashada. Completed application forms are to be emailed to the following address. wuxuu ku yiri markaad soo dhamaystirtid documentskaaga iyo application formskaaga waa inaad ku dirtaa emailka. An applicant may be required to appear for an interview at such place as may be determined by an institution offering by the programs. wuxuu ku yiri waa inuu qofkan xareysanaya haddii uu tusaale ahaan oo kale ku guuleysto inuu soo baxo shortlistedka waa inuu interview u gala. interviewgaas scholarship committee-ga amba guddida scholarshipkan dadka kala xushay ee shortlistedka soo saartay ayaa ku qoondeynaysa amba ku manage garaynaysa halka ay kaaga qaadso interviewga ee ugu habboon. weliba waxay kaaga qaadaysaa luqadda aad ku xareysatay ma English baad doontay inaad ku dhigato Malay ma Arabic, kolba luqadii aad ku xareysatay inaad ku dhigatay jaamacadaada ay kaaga qaadaysaa interviewga. tashanaad, the government of Brunei reserves the right to reject any application. The decision on the selection of candidates is final and the disputes of inquiries pertaining to the decision there will not be entertained. Only successful applicants will be notified. wuxuu ku yiri jaamacad dawladda dalka Brunei waxay awood u leedahay in application kay doonto ay reject siiso. marka waxa weeyaan wuxuu ku yiri decision-ka amba go'aanka ugu dambeeya waxa iska leh guddida kala xulaysa applications formska ayaa awood u leh inay ku aqbasho sidoo kale ku diido. laakiin wuxuu ku sii raacay qofka ku guuleysta amba dadka xariisanaya ku guuleysta scholarshipkaasi waxaa loogu soo dirayaa oo lagu ogeysiin inuu ku guuleystay by emailka ku xariistay. maxaa looga baahan yahay haddaba? maxaa lagaaga baahan yahay? documentska lagaaga baahan yahay inaad xareysato scholarshipkan maxaa ka mid ah? wuxuu ku yiri complete application form. waa inaad application formka aad soo download garaysatid uu ahaadaa mid dhammaystiran oo soo buuxisay. sidoo kale waa in aad ku soo attach garaysid aad sidoo kale soo raacisid qualifications, academic qualifications waxa weeye shahaadooyinkii waxbarashadaada, shahaadadii jaamacadda, testimonialkii jaamacaddaada iyo shahaadadii secondarygaaga iyo transcriptigii iyo waraaqadii darajooyinka imtixaanka secondarygaaga amba jaamacaddaada. Certified English translations of supporting documents must be submitted for documents that are not English. wuxuu ku yiri waa in shahaadooyinka amba waraaqaha
aad documentska aad soo darisid kuwa aan ku qornayn luqadda Englishka wayna soo raacaysaa tusaale ahaan kale luqad kale ku qoran wayna soo raacaysaa iyagoo turjuman oo ku turjuman English ahaan. Applicant statement of purpose waa inaad sidoo kale soo raacaysaa waraaqadan statement of purpose. waxa weeyaan waraaqadan statement of purpose badanka waxay ardaygu wuxuu ku xusaa sababta uu scholarship-kan u xareysan, sababta uu ugu wanaagsan yahay, haddii uu soo barto muxuu kaga faa'iideeyaa, muxuu dalkiisa ku celinayaa, adigu waxyaabahaas uu ku saleynaya. marka waa waraaqad uu ardaygu qoranayo. Certified true copies of birth certificate and passport sidoo kale waa inuu soo raaciyaa shahaadadiisa dhalashada iyo baasaboorkii iyagoo koobiya. Security vetting from country of origin residence waa waraaqadiisii ID uu soo raaciyaa. sidoo kale recent passport size photographs sidoo kale waa inuu sawir kur ah. Terms and conditions of the scholarship haddaba scholarship-kan shuruudo ayaa uu leeyahay uu kugu talagalay inaanad ka hor iman. marka waxa weeyaan waa waliba ardayga ku guuleysta scholarship-kan wuxuu the general terms and conditions as follows. The scholarship recipient will be facilitated with the benefit of scholarship. marka qofka scholarship-kan ku guuleysta waxa uu helaya wuxuu ku yiri from paying tuition fees include acceptance examination registration orientation fees from the duration program. wuxuu helayaa fiigi jaamacadiisa, imtixaanka lacagta ugu fariisan lahaa, registration tii isku qori lahaa, orientation tii kaga qayb geli lahaa, isku xaadiri lahaa. sidoo kale economy class air ticketkii wuxuu helayaa maxay ahaydee ticketkii diyaaradiisa uu ku tagayay jaamacadda. sidoo kale markuu soo dhammaystiro ticketkii kaga soo noqonayay ayuu helayaa. dul maraynaa kana uu sii socdaa conditionskii weli weeyaan shuruuduhu kugu xulay. monthly personal allowance wuxuu ku leeyahay shuruudaha wayna ogaataa. wuxuu ku leeyahay waxaad helaysaa bishii $500. sidoo kale waxaad helaysaa cuntadii oo $150 u dhigantaa. buugaagtii oo ay ku $600 ku siinay. accommodation dalxiiskii ayuu kaa caawinaya. qodobka labaad scholarship may be terminated immediately should be found holding an wuxuu ku yiri scholarship-ka waa lagala noqonaya sidoo kale waa laga cancel garaynaya haddii la arko qofku inuu haysto scholarship kale amba uu sito. qodobkan saddexaad scholarship wuxuu ku yiri ma dhiirigelinayo amba ma tixgelinayo inuu ardaygaasi uu haddii uu familigiisu meesha uu keeno sidoo kale uu ku guursado amba caruur ku dhalo scholarship-kani mas-uuliyadooda ma qaaday intaasba, laakiin mas-uuliyadda keliyata uu hayaa amba hadday lacag noqoto, hadday noloshiisa noqoto, hadday caafimaad noqoto waa isagoo keliyata. dadka kale wuxuu leeyahay iyaga ismasruufaya, iyaga iska faalad qaadaya. qodobka afaraadna wuxuu ku yiri ardayga scholarship-kan haystaa waa in aanu isla dalka gudihiisa ka shaqayn isagoo matalaya dal kale amba dalkiisii uu tusaale ahaan oo kale aanu safir uga noqon waxyaaba noocaasa. markaad waa inaanu arrimo siyaasada dalkiisii iyo dalkan aanu u kala dab qaadin. conclusion waxaynu kusoo gabagabeyneynaa official link waxa weeyaan waa linkiga ay kasoo xaysiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Brunei. waa kan booqan kartaa. for further inquiries please contact. waxa weeyaan haddii aad wax caawimo u baahatid waa inaad inta aad la xidhiidhaa telephone numberkii, emailkii Ministry of Foreign Affairs weeyaan. aad baad u mahadsan tihiin. hadduu alla idmo waxa aynu isku dayi doonaa sidii aynu application formka intaan usoo download garaysano kadibna aynu formka u buuxbuuxino. sidoo kale aynu wax ka fahanno habka loo buuxbuuxinayo iyo waxyaabahaas. kadibna waxaaynu tagaynaa slide-keena ugu dambeeya ee aynu kasoo diyaarinay slideska aynu kasoo diyaarinay website-ka
ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Burundi ay kusoo iclaamisay scholarshipkan ayaynu tegaynaa. kadibna waxa aynu koobiyeysaneynaa linkiga official link halkaa ku qoran yahay. kadibna linkigii aynu soo koobiyeysanay ayaan googlaha ku baastigaraynayna. okay baynu siinaynaa. waka website-kii caadiga ahaa ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaana keenay. kadibna foomka ayaynu soo download-garaysanaa. waxaan ku dhufanaa wordka, waayo pdf-ka haddaynu ku dhufano waxay noqonaysaa hadhow toole inaynu dib u bedelno haddana word si aynu u buxbuxino. laakiinse hadda waxaa inooga fudud inaynu wordkii sidiisii ula soo degno. waa kay socda imika u dhamaystirmay. kadibna open baan odhanaya. waka foomkii oo word ah ayuu inoo soo dhigay halkan. haddaba si aynu foomka u fahanno, foomkani waxa weeyaan foomkan waa application foomkii. waxyaabaad ku xusaysid waxaa ka mid ah facultyga jaamacadda aad dooranayso, programka aad doonaysid inaad xareysatid, personal informationkaaga aad bixinaysaa. sidoo kale waxaad halkan ku sheegaysaa waxbarashadaadii jaamacadeed, training aad soo qaadatay, waxyaaba noocaasa ayaad halkan kaga sheekeynaysaa. haddaba waynu bilaabeynaa. waxa aynu sameyneynaa marka ugu horeysa ee aynu bilaabeyno, waxa aynu sameyneynaa waa inaynu horta halkaas sawir soo gelinaa. markaynu halkaa ku dhufan horta hadda waynu bilaabeynaa. waxa aynu sameyneynaa marka ugu horeysa aynu foomkeena buuxinayno, halkaa sawir ayaynu soo gelinaynaa. halkaasaan ku dhufanaya, kadib insert baan odhanayaa, kadibna picture ayuu gelayaa. markaa halkaa picturekaad soo gelaynaysaa. halkan application formka wuxuu ku yidhi first choice. halkan waxaad gelinaysaa programkaaga koowaad ee first choicekaaga ee dookhaaga koowaada. tusaale ahaan oo kale waxaan odhanayaa halkaa waxaan gelinaya accounting. kadibna afartaa jaamacadood ayaan midkood dooranaya. sidoo kale second choiceka waxaan gelinaya islamic banking. afartaa jaamacadood midkood ayaad dooranaysaa. koodhkan wuxuu kaaga jeedaa programka koodhkiisa. eg wanigi ku yidhi markii hore jaamacadda waa inaad marka hore baadhaa facultiyada ay bixiso. kadibna facultigaagii markaad ku dhex aragtid, sidoo kalena aad buuxisid shuruudihii ay kaaga baahnaa iyadu kaaga baahno jaamacaddaas si aad u xareysid isla jaamacaddaas, waa in aad facultigii soo qaadataa, kadibna koodhkiisa aad soo qaadataa. kadibna dookha labaad waa inaad sameysaa isla jaamacad kale amba jaamacaddii waa inaad baadhaa amba jaamacad kale. laakiin waxaa muhiima mar walba inaad jaamacad labaad baadhid. kadibna waxaad sameysaa koodhkiisina soo qaadaysaa, halkaasaad ku qoraysaa jaamacaddiina waad dooranaysaa. instruction to applicants. halkan wuxuu kugu sheegayaa waxyaabaha documentska ee la socda ee soo raacinaysid markaad application formkaaga buuxisid. waxaa ka mid ah sawirkii baasaboorka, sawir baasaboor baad soo raacinaysaa. sidoo kale waxaad soo raacaysaa shahaadooyinkaagii jaamacadda, secondary testimonialkii iyo waraaqihii darajooyinka transcriptigaagii, English translation haddii aanay waraaqahagu aanay ku qornay amba shahaadooyinkaagu ay luqad kale ku qoray waa inaad soo turjuntaa as English ahaan soo turjuntaa. applicant statement of purpose waa inaad waraaqada statement of purpose kaas soo qorataa.
sidoo kale waa in aad birth certificate amba dhalashadii shahaadadaada dhalashada waa inaad soo dirtaa copy passaportkaagii oo kale. sidoo kale security vetting from country of origin waa inaad waraqadiisa iliga soo raacaysaa. documentiyadaasaa la socda application formkan. haddaba waxaan ku horeynaa personal and contact details. waxa weeyaan waxyaaba adiga ku khuseeya iyo meelaha lagala soo xidhiidha ayuu ku leeyahay ka sheekee. magacaagii, passport numberkaagii, citizenship dalkaad kasoo jeedid, country of birth dalkaad ku dhalatay, waqtigaad dhalatay, diintaad haysatid, ethnicity maxaa tahay, Soomaali baan ahay baad odhanaysaa. halkana marital statuska waxa ma single baad mise married oo guurstay, gender ma female mise male, postal address iskaga bood, telephone numberkaaga halkaasaad gelinaysaa. sidoo kale mobile numberkaagii halkanaad gelinaysaa. country codekii, area codekii, sidoo kale numberkaagii ayaad halkan gelinaysaa. kan waa numberkaagii 632526 amba 25261 kolba halkaad joogtid. email addresskaagii ayaad gelinaysaa. sidoo kale name of parent amba guardian amba next of kin waxa weeyaan waa inaad waalidka gelisaa amba qof kale oo ehelkiina amba qof kale oo lagala soo xiriiri karo. relationship magaciisa waa inaad halkan ku qortaa. relationship xiriirkeeda ka dhexeeya matalan aabahay magaciisa waa aabahay, shaqaduu hayo, addresskiisa halka uu degan yahay, numberkiisa iyo emailkiisa. halkana qaybtana waxbarashadaadii education experience waxa weeyaan wuxuu ku please state all schools attended from the age of 15 waa inaad kasoo bilowda iskuuladii aad dhigatay laga soo bilaabo 15 jirkaagii. waxaad gelinaysaa primarygaagii, waqtigii aad gashay, waqtigii aad dhamaysay, shahaadadii aad ka qaadatay. sidoo kale secondarygaagii waqtigii aad gashay, waqtigii aad dhamaysay, sidoo kale shahaadadiisii aad ka qaadatay. sidoo kale haddii aad bachelor qaadatay degree waqtigii aad gashay, waqtigii aad ka baxday, sidoo kale waxaad shahaadadaad ka qaadatay. general certificate of education ordinary level or labadan qaybood waxaa la yidhaahdaa imtixaanaadkan waa GCE baa la yidhaahdaa. iyo waxaa imtixaanaadkan gala dalal ay kamid yihiin Singapore, Ingiriiska iyo kuwaasa kamid ah oo waa imtixaanaad iyaga u khaasa. waa labadan markaad waa iskaga tegaysaa labadan maadaama aanay inagu aynu galno IGCE aynu galno waa iskaga tegaynaa. other qualifications waxa weeyaan shahaadooyin kale aad haysatid, certificate kale aad haysatid, national certificate haddii aad ka haysatid dalkaagaas shahaado yaroo kale, national diploma higher. marka waxaad gelinaysaa halkan shahaadadaysatay, institute-kaad ka dhigatay waqtigii intii dhiganaysay, date birth waxaad gelinaysaa waqtigii aad maxay ahaydee aad ka qalin jabisay ama dhamaysay. classification grade gradekaagii, medium of instruction intermediate baatay ayaad ku dhigatay. tusaale ahaan oo kale halkan waxaan gelinaa englishkii barefadkii aad ka dhigatay intii aad dhiganaysay, tusaale ahaan oo kale meelaha 2 sano. date birthkii waqtigii aad ka qalin jabisay, sidoo kale gradekii aad ka keentay. medium of instruction waxaad oran kartaa oo kale amba advanced amba intermediate ayaad oran kartaa. halkan intended qualification waxaad halkan gelinaysaa programyo amba course amba training aad qaadatay. tusaale ahaan oo kale halkan course ayaad ku qoraysaa name of the course-ka magaciisii baad ku qoraysaa. tusaale ahaan oo kale human resource management subject training buha, date of results waqtigii aad ka qalin jabisay, language proficiency luqadaada heerka ay taagan tahay. English markayn taagannahay, English markayn marayno, written-kaagu ma 1 ba ama 2 ba ama 3 ba, reading-kaagu sidoo kale spoken-ka hadalkaagu. other please state haddii ay qaar kale jiraan halkan aad ku qoraysaa haddii luqado kale aad garanaysid. academic distinctions and prize
received waxa weeyaan halkan waxaad ka keenaysaa waqtigaaga academiga jaamacadaada amba hadday noqoto secondarygaaga amba primarygaaga guulihii aad ka gaadhay xagga waxbarashada, hadday noqoto honor inaad noqotay, haddii aad qaadatay shahaadooyin waxbarashadaada aad heer kaga gaadhay tusaale ahaan oo kale, haddii aad matalan oo kale honor noqotay amba saddexda kaalmood ugu horeeya ardaydaad ka mid noqotay, aad sidoo kale aad abaalmarin heshay, halkan ayaad ku xusaysaa. qodobkan shanaadna wuxuu ku yiri propose your future career, halkan waxaad kaga sheekeynaysaa shaqadaada mustaqbalka aad qaban doontid noocay tahay, halkan ayaad ku xusaysaa kaga sheekeynaysaa. applicant statement of purpose, halkan waraaqada statement of purpose baad halkan ku qoraysaa intaad marka hore diyaarsatay meel kale ku diyaarsatay kadib halkan kusoo koobiyey ama haddaad doonto halkan sidaada ugu qor. marka wuxuu ku yiri statement of purpose-ka markaad ka sheekeynaysid waa inaad qeexdaa your plan of study, qorshahaaga waqtiga intaad ku guda jirtid iyo intaad soo dhiganaysid jaamacadan. sidoo kale waa inaad nala wadaagtaa buu yiri waxyaabaha qorshahaaga aad qaban doontid markaad soo dhamaysid waxbarashadaada. sidoo kale waa inaad la xiriirsiisaa waraaqadan mustaqbalkaaga shaqo qorshaha mustaqbalkaaga ee shaqo waa inaad waraaqadan la xiriirsiisaa. markaa saddexdaa qodob buu ku kaga sheekay halkan waraaqdan. marka halkan waa inaad tig garaysaa work experience, haddii aad tusaale ahaan oo kale shaqaysid buu ku yiri waa inaad halkan employer's name numberkan toddobaadna work experience, haddii aad shaqaysid waa inaad halkaad ka shaqaysid magaceeda qortaa iyo addresskeeda. position head waxaad qabatid ma part time mise full time, from xilliga aad gashid, sidoo kale xilliga aad kasoo baxdid. sidoo kale extracurricular activities, halkana waxaad kusoo bandhigaysaa dhaqdhaqaaqyo si aad si mutadawacnimo aad u qabatay, haddii ay noqoto waqtigaagii jaamacadda, haddii waqtigaagii waxbarashada. types of activities, dhaqdhaqaaqyada waxaa ka mid ah ciyaarihii aad ka qayb gashay, cultural dhaqamadii aad ka qayb gashay, hadday noqoto gabayaad soo bandhigtay, ciyaaro dhaqameed, waxyaaba noocaasa, community service waxyaabaad u qabatay bulshada ayaad halkan ku qoraysaa, sanadii baad ku qoraysaa. sidoo kale halkan ku xusaysaa level of participation, waxaad halkan ku xusaysaa levelka ay ahayd ka qayb qaadashada, ma club, group ahaan amba club baad ka tirsanayd, district ama degmad ka socotay, national, regional iyo international ayaad halkan intaa mid kamid a dooranaysaa. sidoo kale membership in associations and professional bodies, haddii aad ururo aad ka mid ahayd waxaad ku qoraysaa halkan position head, xilka aad haysay, academic awards and scholarship achieved, halkan waxaad ku xusaysaa scholarship aad ku guuleysatay waqtigii aad jaamacadaada aad ku jirtay amba secondarygaaga amba primarygaaga, amba academy waqtigii aad waxbarashadaada aad ku guda jirtay abaalmarina lagu siiyey amba scholarship aad ku guuleysatay ee halkan ku qoraysaa noocu ahaa, institutionkii magaciisii, haddii iskuulkaaga magaciisa yahay, jaamacadaada, date awarded xilligii lagu guddoonsiiyey, reference-kii halkan reference-ka wuxuu ku yiri please give details of two people who contact as a request to support your application. You should contact them yourself or request them to each complete a reference letter from our leave C1 and C2 and submit the reference letter accordingly. wuxuu ku yiri applications cannot be considered unless reference are received. wuxuu ku yiri waa name of referee, halkan waxaad ku xusaysaa laba qof oo markhaati ku noqda, sidoo kale kaa caawinaya waxay kaa caawinayaan inaad applicationka scholarshipka aad ku guuleysatay waxyaabaha ay qabtaan. jaaraalka laba macallin baad ku qoraysaa, taleefanadoodii iyo email-adoodii. declaration-na waxa weeye waxaad qiraysaa inaad I confirm that the best of my knowledge that information given waxyaabahan aad gudbisay informationada inay true yihiin wixii kasoo baxa scholarshipkan
aad ku qanacaysid waxyaaba noocaas weeyaan. marka eydkaagii iyo saxiixaagii halkana waxa weeyaan waxaa halka hore wuxuu ku yidhi waanad labada reference letter soo qorataa oo kala C1 iyo C2 aad kasoo kala qoratid laba qof aba laba macallin oo aad ku yaqaana tusaale ahaan oo kale dhinkaaga iyo macallin kale wuxuu ku yidhi reference letter waa C1kii waa inaad macallinka u geysaa waraaqdan labada macallin midba aad u geysaa C1ka aad macallin u geysaa C2gana aad macallin u geysaa. marka applicant's name, country, course applied, what capacity do you know the applicants, macallinkaad ula tegeysaa marka waraaqdan. sidoo kale tan kalena C2 baa la yidhaahdaa oo waxaad ula tegeysaa macallinka kale marka isaga ku buuxinaya. tan kale waraaqada kale to be completed by the nominating government, waraaqadana waxaa soo buuxinaya wuxuu ku yidhi waa inagii application procedureka markaynu ka hadlaynay waa inagii kusoo xusnay markaad applicationka processkiisa aad dhammaystirtid waa inaad soo maraysaa wasaaradda arrimaha dibadda amba qaybta scholarshipska ee wasaaradda waxbarashada si ay intaan soo confirm gareeyaan. kadibna waxaad u gudbinaysaa official markaa waraaqadaasna waxaad u gudbinaysaa to be completed waraaqada ka bilaabmaysa iyo tan kale waxaad u gudbinaysaa wasaaradda arrimaha dibadda amba wasaaradda waxbarashada qaybta scholarshipska. aduu labada wasaaradood kolba kii la xiriira qaybta scholarshipska ayaad la xiriiri doontaa hadduu alla idmo. marka labadan waraaqadood waxaad u gudbin kartaa wasaaradda arrimaha dibadda haddii jirto qayb scholarshipska la xiriira internationalka amba wasaaradda waxbarashada qaybta scholarshipska la xiriira labada waraaqadood u gudbinaysaa to be completed. labada sarena waxaad u gudbinaysaa laba macallin aad ku yaqaanaya soo buuxinaya kadibna waad gudbinaysaa waxaanad u gudbinaysaa emailkan soo sheegnay waa ka emailku application formkaaga iyo documentskii kale lagaa doonayay wuxuu ahaa kana sida loo xaraysto scholarshipka uu iclaamiyey dalka Burundi. waxaan idin rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed guul wacan insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.